ولي waxaan ku jirnaa safaaradda walaalaha Turkiga halkaan maanta waa xilli shaqo iyo waqti shaqo waxaan jeclaysanaa la wadaago muuqaal quruxda badan ee safaaradda dilahaydmo Speak Somali? Yes, I do. Good. Television one. No, Facebook only. Facebook only. Yeah. aad baad u mahadsantihiin waxaa maantay la yaab igu ahayd oo aan halkan ku arkay wiil Turki ah oo yaqaan af Soomaaliga magaca Under bay. meeqa joogta Soomaali 5 sano ba jooga. ay meeqa Soomaali maxaa ka taqaana Inta ya Soomaali maxay gabarna ku sina marabta Soomaali maraba ana gabar maraba ay maxaa dareedan ma muqsii sida waragta madaxweynaha diiwaan soo dhaweynaysaa waa walaalkeen waa nin muslim ah oo Turkish ah walaalahana caawiye aad u maasantahay way wiil garanaya af Soomaaliga waa markii ugu horeysay oo aan arko wiil Turkish ah oo garanaya af Soomaali aad baa u kaftanay waa nin kaftan badan wuxuu sheegay inuu Soomaaliya joogay muddo badan oo muddo 5 sano ah marka waxaan rabnaa la wadaago muuqaalkii baleen safaaradda ma ahan dhismahan Yurub ee wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho dad badan oo sawirro noocan oo kala ah nagu soo gali jiray Yurub baantay kulay way arkaan magaalada Muqdisho dhismaha ku yaalaysan qaar badan oo ka liidan wadamada Yurub sawiraan ka arkay magaalooyinka ugu hormarsan la sheego Yurub sida London oo kale aad dhismahan ayaa uga qurux badan aad bay u maasan yihiin walaalaha iyaga Turki oo suurta galin halkaan ay ka dhisaan halkaan in badan oo kamid ah Soomaali badan filimada ayaan ka daawo jirnay dhismooyinkan marka aan joogno gudaha dalka laakiin waa karaamaansan waa meel aad u qurux badan dhab ahaantii anigu waan ka helay halkani ma ahan Yurub ee waa Soomaaliya وجدان هذا هو دوارك وعليه زي الديار دي معين لكن ما ندري من عبد الكريم قري عليه وما سنت هاي ولا المعاني جمعة وناكسن أو وعن أدبي طبعاً أنا وظهر اسمها مركان سو إحدى شيء وما قبل يصير هتكدح بحضر meeshan aan ku suganahay hadii Allah idmo waxa sugeynaa Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga aan hogaamiyaha muslimiinta aan u aqoonsaday Akri Maxamed Macu سودين ولي مية مدحوني ما إيمان قرر ويا الله فيلا يوم كسر دكان مقالة مقدسة لكن تيم أنا جا تيم كنا وحنا هاي تيم فقرا سفارات دا يعني حرجة كذا ناتاشا نشاط سودواو شمس عبد الله ما شاء الله وعليك السلام قول ما عنته وان في عنا الحمد لله ما أنت ومالين شقة هذا ذاك جبت فرايداي ومالين السيناء ما جمعة ما هن ما أنت مالين السيناء ومالين شقة وين يقطعوا دلك أو متنوي هاي مثل كان ريك رقفك وشرفت بدنات بن آدم كحل جان جوجا أدوك أنا الشيخ علي ورداري وما سنت هاي أنا جميع لايف وبدني لكن
dhowr mar oo hore waa sida aan u soo galay live-kana waxay tahay inaan idin la wadaago muuqaalka quruxda badan ee safaaradda igama ahan inaan anigu dan gaara kamali live-na waqti ugama hayo inta badan aan ku galo Hussein Usman insha Allah goor dhow ayaa la rajaynayaa Nairobi waa ka soo baxeen awada u bay ku soo jiraan dadkii hawada sheegi jiray ma aqaano ayaga laga rabo inay soo sheegaan yaa amsata عطوري هذه داتا أكو صلاة ونام هاي إيمو ما سنت دي عاد ورسوقن أما سنت ولا معاني أنا كنا نبى دولة بهسرد dhammaanteen ayaa u mahad celinaynaa walaalaheena Turkiga ma iloobi doona abaalka inoo galeen hadda gudaha magaalada haddii aad gashid iyo wadooyinka hadda safaaraddan ka agdhow waxaa safan shacabadu fara badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo diyaar soo dhaweynta madaxweynaha iyo inay u muujiyaan abaalka oo heeso ay qaadayaan waxaa ka mid ah Turkiga abaal inoo galay ma iloobi doona abaalkaad noo gashay ناصر علي إن شاء الله وأنا اسكو دايا إن لايف كرديغو يعني خطبadaas iyo xareeka jarkiisa dhamaanba how are you waxa igu la yaab badan waxa kamid ah meeshan Turkida joogta intooda badan ma yaqaanaan luqadda Englishka waxay ku kula hadlayaan luqadda wadankooda hooyo ee Turkiga taas waxa tusaale fiican ay u tahay Soomaalida in ay horumariso luqadeeda لكن ويلكي ياسر ويل تركيش لكن عقار بدن uga bilaabantahay luqadda Soomaaliga waa meeqa joogta xoogay uu fahmaya afka intan kula hadlayo oo hadda markii ay saan mareynay meesha safaaradda soo galanay asaga turjumaan ooga ahayba dadka kale Abdurrahman Adow insha Allah batari ma dhacayo xal ayaa lagu soo tashaday marka shaqo la soo aadinayso batari u ka dhicin waxyaabo ugu muhiimsan waaye inaad ku tashatid aad ayay u weyn tahay safaaradda dhismaha aan joogno waa qayb kamid ah dhismaha safaaradda dhab ahaantii aad ayaa loo hormariyay dhismaha safaaraddan waana dhismo qayb ka qaadanaya bilicda iyo horumarka caasimadda dalkeena maadaama wadan kasta waxa laga eega ay tahay ama horumarkiisa caasimadda dhismooyinkan hadii ay dhismooyinkan ku soo bataana waxay noqonaysaa caasimadda ugu qurux badan Qaasim Xaajiyo waaba yaqaanaan qaarkood oo hadda wiilkan hadda arkayo kala Yaasiin la yiraahdaa uu garanaya Soomaaliga xogaa intii uu ka garanayay laakiin dhibaato waxay ka dhacday kuwii kale Englishna ma yaqaanaan luqadooda inay ku hadlaan anaga ilaa yaqaatiyo in hadda luqadii barananaad maanta dadkii Turkishta wax ku soo bartay maanta u baahan Cabdalla Macallin ninkaas aad Turkiga u yaqaan afaarahooda Rahma Ahmed meeshani waa Muqdisho not Europe not Africa di kale dhismaha Muqdisho ku yaala su'aalihiina waa ka jawaabi doonaa safaaraddan in su'aal safaaraddan iga weydiiya maantay intii aan awoodda waan kaga jawaabaa waan ku nastay meeshaan meel qurux badan jira meeshaan nasiir ahaan hadda u fadhiistay قاسم حاجيو هذا مركي سoo galanay safaarada
aad buu midaas waxaan ugu hadlay luqadda Turkiga anagana waa tiim oo wariyaal oo kamid yahay Cabdinaasir Maxamed Faransa Soomaaliya waan kula hadalnay marka isfahan weyne kadib mid Ingiriisi qala noo imaado waa yaa amulil أنا راح أقول أنا يو إن كان يسمحون أولاد اللغة بس أنا وأنا صومالي أنا اللغة دين صومالي كلها هذلنا علي أحمد محمد وما صنت هاي وحافظ عبد العزيز قبل كبنادر مقالة مقدشو شيكينا هاجي صلاة إن شاء الله واضمان دون تم مقدشو وفوسو دوينينا إن عبد الغني جعفر سفارة آد بيقرح بدنتها نظام أهان أمن أهان دسم أهان شغالها جوجنا وضد آد وناكسن أنت كبرنا ما أنت ساعة دور ساعة جوجا أو قسم المدرسة ساعة هذا وضد آد احترام كوي قانا كل واحد كويدين يعني قوات ستيشن كوا ستيشن كي أما حروتها قصعتها مقعد أنت سلويدين ليس ديارسن أو تيم لو دياريس وين تقيبت ميديا أيا كشقية magacyadeen yaala kaararkaasana loo sameeyo oo hadda aan ku soo galnay kaararkaas waxa ku qoran waa calanka Turkiga iyo kii Soomaaliga intaas aan ku soo galnay aad u fiican tahay dabaqyo hal dabaq kan u jeedaan waa laba dabaq qayb kale iyadana xaggaas ka soo jeeda waa laba dabaq aad bay u badan yihiin dhowr dabaq way meesha waa xaafad Ilaahay aan dhigi karna waa qaybta xaggana wuxuu ka saaran yahay xeebtii liido iyo halkaas waa iyadana dalxiiska aad u wanaagsan oo meeshan xeebta liido ay u dhowdahay qaybta xagga hadaan gaaro waa xeebtii liido ayaad arkaysaa xidig reer kooshin halkan waa Muqdisho nasr hadaad aragtid waa Muqdisho meesha life ka ahayna waa Muqdisho ما أهان يوروب وأنا ما تهريجين حمرة جوجا إنجنير أحمد شوقي إن شاء الله ما أنت ماشان جوجنا سفارة ديوية ما لك كلام تجي دونا سياسة كلام ما لك وحنا وصابن تجي دونا لكن إلا يهد أنيجا أنت المجال ذا وسعودي بسمهان اسمك قروح بدن ولي ما أكل والله مدوار تيم كم إذا أنا أصحابته أجدا أو تركيا أنا كبرنا أنا قيبت أنا ديك فرنور مرة عندك جاي إلى هذا ليا كل واد ما صنت هاي درحيس ملوتي كلا تاس maybe meeshaan waa safaarad mana fuda sida jeclahay in lagu yimaado dalxiis tan way ka soo gali kartaa ina soo booqatana cid inay diidayso ma aaminsani inkastoo ay tahay nidaam aan safaarad ilaalino maya waan sugaynaa wuxuu ku soo adeeyay dhowr daqiiqo kadib waa imaan dilahay هلا اسكوبه لما يسحق يوم ايوه واسل جوجنا كوي معنا قاسم حاجي سفاردان waxay ku taala degmada Cabdi Casiis dadka kala ku dhigo Lido Beach ama xeebta Lido agteeda ay ku taala hadda xeebta Lido way soo uraysaa حمد تحضر سعيد إن شاء الله هذا ويكسر دافت كله لكن مركو إيمان دونه أو كله أو مركا أفراد وصراع دوتا ورا ذيك على نتاشا يا واسكيل الله ولي جاي بد مقدبان هنا وقبيستي ما هنا ولي جاي بد حتى مقدبان شاني واقع بسنوه وجد أنت اسكو جرا موجود عالم كتير كده يعني
dalxa insha Allah waa isku dayaa intii tabarteeya inaan ka dhigo xogaa waa isku ogteen internetka xamar aad u yara liitaa suurtagal wax kasta way dhici karaan laakiin waxaan isku dayaa inaan idin live garaayo khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha Turkiga labadaba بيع عادي ومعابية بدو بيع قبل معاوالي يقول لك أنا من الدمية بيع مفعل مقتل لكن بيع معاوالي بيجري عبارة الدمية وأنا سلالة هيدون علن كان يكون الجنيه هاي لكن هاي بتكلا إن سفارة يكون الجنيه على ماذا لو علنا يكون الجنيه ويجي بيها ده هنا نقول وين علن قيمة بدل لا في Soomaali aniga waa ka cabsada dabaal ma aqaano biyo aniga bada waan tagaa laakiin meel fursiya dhigta biyo aan iska fiirsada aniga ma jecli inay biyo kormaraan waa inaan jalaqsanaana meeshan waa xamar برجاني جانت واحد وقت ذي لما أنا يعني إسماعيل عبد ولي إسماعيل صاحب وسفارة عصب أول هرا واحد دجنات سفارة كلا باسمه كلا سفارة لكن كان أي سر رسمي وسوق جوري دونان كان وحي كل شيء كان سراكيش التركي وزارة الرماد دي بدأ إنها تهي سفارة داني سفارة هو التركي وكل هاي دان أفريقيا كويا له يعني وحين كل شيء كان إن الصومالية هي التركي حرر تكرر حياة تاساب وتهاي قيمة بدن ها إن شاء الله بلغة سودانية تيفية قرنكا سيدان جعلها لكن واحد كستاواسو تقل لكن هذا هو الاسكو ديارنا تيفية لغة سودايو إمارتين كيسة مركو قرانك كسودايو meelo badan oo xariga ka jari doona oo meelo badan dhagax dhigi doona madaxweynuhu ay safaaradda ay ka tahay in uu xariga ka jaro si rasmi ah u shaqeeyo waxa hadda ku sugan saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda wada aad u ixtiraam badan oo wariyaasha halkan ku sugan aad ay noo soo dhaweeyeen هذا ما سنتين دمانتين وين قاضي وانا انسان وما سنتها ولا أنك جودها أيام صاق النيد دوينه بنانك أي كسوينا يجوا والتصور هذا مثل هذا مدحونا جمهورية الصومالية هي مدحونها تركيا قاضي يعني سها يعني وضن كان تركيا الصومالية يقاضي تركيا قرار رجب ضي برضه وراء يوروب أنا كان هذا الاسمين أنا يوروب نوع روح بلان ما جديد حاجة أركي واقع استمعتي وقت الدحيس كي هاي وما جبت الرفرب أنا نجراه تبنتي تيفيجا إن شاء الله وصوصة تدوري مركو تيفيجا مركو كسر دقة جرانكا هذا وحيرة وقدم سود ليستيسي مركو سود دقة جرانكا هذا اللي تبصوا تبندوا ورا مقدشو واي هذا نسأ أركتين ماشي إذا كان الله يسوى مقدشو
sawirradana waa qaybta safaaradda waa maantii qaybo badan oo safaaradda jiro oo ka soo qurux badan hadda intaad arkaysaan Abdullahi aadan caaqil ayay su'aalaha bal saweydii su'aalo waxa laga yaabaa inay ilduufay laakiin su'aalaha la weydiinaya ha aado macluumaad la xiriira safaaraddan iyo qaab dhismeedkeeda iyo sida uu shaqeyn doonto intaan ka waraay waa idinkaga jawaab maadaama intayna live kan soo galin horay aan su'aalo badan u weydiiyay saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee halkan ku sugan brotherkay calankii qaybta laga soo galo halkan waa bartamaha safaaradda meesha laga soo galay ay ku jirtaa sidaan hore idinku soo dhigay video-ga horana ka arki kartaa yasawayo asadi way kala kacsantahay muqdisho soo imaa wada Yurubta iyo dameelaha joogtaan u wareerinay dadkan oo Turkida aad ugu bagay waxa ka ag marayaan lagu hadlaayo Soomaalina waraatan maxay sameeyeen iyo waxaas ku dileen Soomaalida iyo inaan ka barano waa dhaqanka shaamid defuurida Soomaaliyeed dhaqankeena qayb ka mid ah diideen iyo geel iyo arigan ku laasho jirnay say ka noqon محمد فضحي أذكر معاني لما أنت لنا دوره ها وكسكت يا أنت تلاقي في أنك قد يقول هذا الكيسيس وجلستيس أنت وأنا لا في قد يقول عبد الناصر فرنسا هذه حنجوجنا سفارة تركيا الصومالية وسفارة أبوين ودمشق الصومالي وتعلق حويان ونصر ما تدرين تسيني سواد أركي كتان ميلان قروح بدن أقو دقائق ألو ما أقول لكن دي أنا قدو مشان أنا قدو بينا أنا إذا تسينو لهن نقاس دلنيرة ده وحكمي دي هاي دكتور تركيا هالكان جوجا حندلنا نصر وحبا كنا في أي أنت إتكسر ولا بنان كان جوجي ويقول تركيا والصومال كوا الله يسوداي ما قاعد وقتها ويجي ياسر ما قاعد وقتها الصومالي شو سنوين هذيك ما قاعد ويجي هاي أنا نصر لنا يا نصر الصومال ما قاعد ولا بعد هاي نصروين بدل مية هذه ويجي نصروين بدل البرتي جينا برا قبر صومال بقدر سنة ما يجي قبر خبر تركي جوكته مرة أقول بس هذه مركب وردو حرجينا إنه مدحونا تركي جمادو وأنا لسه عندهم تاني إن شاء الله sida ay wax u dhacayaan oo nasr ayaa u helan inay idin soo gudbiso qaabka markasta halkan ay wax uga dhacayaan halkaas biyahaas filmada ku arki jirto aadiya nasr waxaan ka hilmaamay inaan ku sheego markii koowaad ee albaabkii mid ee halkan ay mid waxaan u haysteen Istanbul ka warami doono dasbahan quruxda badan iyo wadooyinka laamiyada ee safaaradda dhexdeeda dadkan caadada arkay waxa siriday tolow ما اسطنبول باني لك أنا ما أنت كورة في دونتا. سريرت على هرد السبب في هذا ولا يسميها وسوس على. هذه. عبد الناصر فرنسا واه إن ورياش هالكان إن أتشوجت تبنتا إن إماتينكا إن مدحونا إن رجب ضيب يسودا كلا إن حيجرك سفارة داني يميلا بدن ومدحونهم أنتي إن دقحدق يحرجرك سمين دونه إن وأركي سيدك فرنساها ويصير بالموضوع حلي هرداد إن صاحبكي وحو كمid yahay wariyaasha maantay u taagan inay tabiyaan imaatinka iyo xarijarka safaaradani waa SBC cameraman ka tirsan bal haye waxa dareento marka halka soo gasho ma sha Allah nasrata aad uma santahay meeshan waa safaaradii Turkiga waa maalintii ugu horeysay aan soo galnay haddana waxaan diyaar garow aan ugu jirnaa madaxweynihii Erdogan
si aan bulshada aan usoo waxaan usoo bandhigi lahayn. bal dhismahan markaa aragtid maxaa dareed wallaahi dhismahan waxaan dareemay inaan muxuu ahay Istanbul joogo sidii haddii dadkii qurbaha hadda waxayna tusayaan mugtahay sawiro oo Yurub ay ka joogaan ay ka ama muxuu ahay Istanbul oo kale iyagoo meelo qurxan jooga dhismihii waddankeeni hadda oo la dhisay waa kaas aad arkaysaan meesha biyaha halkan waa meesha biyaha inuu Mr. Boni waagi filmada Hindiga shaqnaa jireen Mr. Boni iyo ku dabdagaala arkaya Mr. Boni iyo wuxuu ahay Akshay Kumar ma lahay Akshay Kumar iyo Mr. Boni sumid Soomaalida mar waa taqaan mutun aad maasanta wallahi nasoo meeshan saa ujeedaan dhismahan waa waddanka Soomaaliya oo hadda safaaradda halkan ay qabsatay oo dhisatay anagana waxaan rajaynaynaa inaan safaaradda aan dhisan doono soo qara bilicdan sidoo qara qurux badan inaan ka dhisan doono Istanbul ama Ankara Soomaaliya caasimada Soomaaliya waa yahay waa sii socon doonaa dhismooyinkan soo eegaynaa aniga iyo saaxiibkay waa cameraman isku mehnada nahay laakiin SBC TV ayuu u shaqeeyaa SBC waa TV-yada ugu horeeyay Soomaali ay yeelato ama la furo aad meeshaan tagaynaa hadda dabaasha niyo dabaasha si fiican dabaasha si fiican aad u fiican laakiin hadda kulay mar hore ay ugu dambeysay inuu qoydaha bilaw ka cabsanay kulay shaqaan u diyaar garow laakiin hadda manaha waxa break ma jiro meel mar dabaal soo fakar break waa jirtaa laakiin waa isku dayna insha Allah horta ana hore aan kuu sheegay dabaal adduunka dabaal oo nacbaanay weligay biyo inta galay hadda wuxuu ahay dadkan iska tahriibay horta aniga waxaan la yaabanahay ayko khibradda dabaasha aan aqoonin hadda anoo kala dabaal waa aqaanaa inkastoo aan aqaano laakiin waxaan ka baqayaa barafkaas qabow ya barafku muddo waxaa la yidhi barafku waa haye barafkaas aad ku dilayo si kastoo aad dabaasha u taqaan xariif uga dabaasha aad baan u aqaanaa xagga cagoorey ayaga dhaxgal waxaan rabaa nasriin aan weydiiyo dad badan oo hadda Facebookga toos noo la socda qaarkood ay soo wacaan waxay soo iga soo codsadeen inaan ku weydiiyo nasr biyahan oo kale adiga biyahan oo kale weli nasr ma aragtay iyada hal weydiiyo horta anigu biyahan oo kale waa oo qofkii taqaana Nairobi Uhuru Park iyo meelo badan oo waxa jirta ay leeyihiin biyahan oo ku jiraan laakiin waa markii ugu horeysay oo aan Soomaaliya ku arko aad halkaas nasra waxa ka muuqanaya garoon yar oo kubadda cagta lagu ciyaaro oo dabcan dadka halkan jooga ay ku ciyaaraan dhismooyinkaas kale ee idin muuqda waa qaar ama barnaamijyo kamid ah ugu yar dhismooyinka weli waa kuwaas waxaad moodaa weliba in qaab casri ah ay u dhisan yihiin waxaa halkan jooga qaarkood diblomaasiyiin iyo dad halkan ka shaqeeya oo Turkiya oo laftirkooda isu diyaarinaya soo dhaweynta madaxweynaha Turkiga marka maanta haaf Istanbul aan joognaa naloo dul qaato waa iska baabaasan Istanbul iyo anagu sumidana ma aad Kawsar Cabdiraxmaan Faray oo Kawsar ku tabayo Turkiga ku tabayaan leeyahay maanta waa isla joognaa Kawsar waxaan leenahay Istanbul baan kula joognaa hal isaar kamid ah laakiin Istanbul dad badan wada joognaa Istanbul ta Soomaaliya weeyaan Istanbul ta Soomaaliya way ani waxaan aaminsanay ereyada safaaraddan ku taalo in uu Istanbul loogu magacaabo nasr waxaan rabaa inaan ku daro oo hadayna aan ku sheegay intaan halkan joogno wax badan baan ku aragnay waxa kamid ah dhinaca security-ga oo amniga oo aad loo adkeeyay runtii safaaradaha qaar maxaa la yiraahdaa waddanka joogaan qaarkood waxaa jira dhagxaan waaweyn baa ugu xiran meelaha halkan sidaas uguma xirna waddada xeebta liida soo aaday ku taallaa derbiga ugu horeeyo derbi adag oo weyn ayaa wax ka soo celin kara muraayadaha waxaan ka soo dhex baxnay muraayado proof ah oo xabadda iyo rasaastu aysan karin waxaan soo dhex marnay ilaa dhowr mashiin oo haddaad sheegaya inaad hub iyo wax wadata qalabkaaga waan soo gudubnay dadka halkan jooga waxaa ku jiro dhalinyaro wiilal iyo gabdho Soomaaliya oo Turkiga ay shaqooyin u abuureen oo halkan ka shaqeeya markaad eegto laftirkood dadka Turkiga halkan jooga oo ma haystaan ama kaama dhigayaan dad ajnabi oo yimid laakiin waxay u haystaan in dad walaalahooda halkan jooga oo u yimid inay kamid yihiin marka
waxbixinada iyo waxyaabaha kale ee la xiriira bartan Nasra Bashiir ayaa kala socon doontaan oo idin soo gudbin doonaa warbaahinta Nasra dhade aad iyo aad warbaahinta warbaahinta nin saabka baafal yiraahdo away baalna war Cabdi Salaam ku soo warbaahinta markaas idaacad Heblaaya maqla jiray TV Hebele marka ay dikaaradaas aad arkaysaan waa kuwii meesha ugu imaanay dabcan ku qoran afka Ingiriiska afka Turkiga iyo waliba Soomaali Soomaali kuma jiro meesha Soomaali عادي magaca Soomaali ahaan baa ku qoran Abdi Nasir English marka magaca waa ka wax dhan wada English iyo maadaama ay imaanayeen dad qaar saaxiibadeena oo saaki aan u sheegay halkaan imaanayo qarkood waxay ii soo direen fariimo af Turkish ah oo yiraahdeen su'aalo waayo weydii madaxweynaha Turkiga waxa marka la yaabay sidee u akhrin doonaa waa saacad doonaa taayna dadka aniga tiin badan ay soo direen marka inaan ayadoo Turkish ay bal dhawaaq af Soomaali noogu soo qoran aan ka suurtagal ahaan leed marka kuwan xitaa waan ka dalbanaynaa waa akhri doonaa kulli Laatiin ahaan waxaan soo day inaan Laatiin ahaan sida u yaalaan Ingiriis ahaan ugu talansad gareeyo si un waa sameey ilaa hadda waan la reer Turki intii Turki taqaano أنا سو عاوي سو غيرنا في الصومالي في الصومالي سوا وحي تركش توق في الصومالي بنا نقول سوق عادي أنت نجونا ديناصور تكش دتك تركي دا والله اللي دونا ورئيسان دونا أنا لا أنا أنت جوجا ماشان ما أركين قف أو دتك تيم كان جوجا لما أنت أفترك شيء قرام إنجليش حواجو ما قرنا يا طيب سكوريت هدايا برنامج وكله مركي إيرنا نصر أقول رئيس أنا كحيجي مركا وكويدينا halkee ka socotaa inay ku dhahan af Turkish Suldaan kolona la socday wuxuu isku dayay inuu af Turkish qaado wuxuu yiri bajuqdu waa wada dhihi karnaa laakiin in la isfahmi waayo hadara marka Suldaan ay taqaan markii dabar ay taqaan markii la fahmo luqadda xaafidida ma ku hadlo aad iyo aad dadka qaar waxay sameeyeen xitaa iyaga af Turki markii nagula hadlaayeen af Soomaaliya dadka qaar ku hadleen ilaa isfaham yimaado waxay yiraahdeen Turkigooda ku hadlaan anaga afkeena ku hadleen afka meesha taagnaad marka ha imaadaan meel dhaxo ama Arabi ama Ingiriis oo luqad caalami oo la isku fahmi kara ha imaado marka Soomaali ilaahay soo dhawaada Soomaali Maxamed Soomaali ilaahay waxda ya aniga waxa la yaabaa Soomaali Maxamed أنا محمد من أنا يا أختي محمد maxaa laga wada ereygaas ma kulay dadku waxay kala soo jeedaan anagu dad islaam oo nabi maxamed baa lagala jeedaa marka sidaas bay halkaas uga timid Soomaali maxameday Soomaali maxameday Soomaalidu waa dad islaam ah oo sunni ah oo diimahoodu aysan kala duwaneen rasuulkooduna uu mid yahay marka waxaan u nahay dhawaankii nabi maxamed marka ummadda intaas bay kala jeedaan soo dhawaada Soomaali ilaahay Soomaali maxamed dhamaantiin nala baashaala waxaan leenahay maanta hafturkiyaan joognaa saaxiibada fariimaha noo soo dira feedback noo soo celiya waa mahadsantiin weli waxaan ka codsanaynaa oo codsi naga ah su'aalaha inay su'aalo inta noo soo qoran af turkisha hoosna noogu qoran dhawaqa iyo macnaha laga wado ayada weli hadii ma ogtid su'aalo kale noo kala gawra waxaan u jeednaa oo hadda soo galaya dhalinyaro aad u qurux badan oo loo diyaariyay soo dhaweynaa waxaa loo soo geliyay calanka walaalaha Turkiga way qurux badan yihiin dhabaantii waana mid loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo ujeedaan boowe fiicantaa way yaa galana أنا أقول لك أن قرب ما أدري ممكن هذه تركيا يوروب إيه ما تجي فعلاً أقول نقول دياسبرا أنا وش ما كان حلو لما ندياسبرا يا كي حتى ما تيجي والله بين تمام ياسين ها ماشان وحمر نط يوروب كله هي مقالوين كله سؤال وسوي دين سؤال حاصل دبعت كلمة يعني السلام عليكم How are you? Hi. Which channel? كاركس الله إيجيا وإسكا باشال واي Are you journalist?
يا ده ما أنت الأورجينالز قدومي فعلتها عاد كورة نودي برواق في غان أنا جنا نعم بدون جامعة بمضوان جرماني جرماني ناشونال يونيفرسيتي I have got friends from Somali. I like Somali country. wuxuu leeyahay in aad baan uga helaa Soomaaliya Thank you, no problem. I have got one friend from Maria, Mohammed Hassan. Mohammed Hassan, he's a student, Turkish University. My friend. علياي يا محمد حسن إلى تركيا جوجا وصاحبك Mohammed Hassan, مرنيا المي قاعدين سكورتك Mohammed Hassan. You know Mohammed Hassan? محمد حسين Which channel? Channel SBC. Okay, channel journalist. ما أهان الكن وسفارة Somali National Television Somali National TV. Yeah. وأنا أعرف فرنا بهانتي دمانتي أنا يونا ورئيسنا يي الوحكة وأنا إسكا غيار إسرائيل شيء إلى Somali ده هي وجالي السؤال هنا يدب كثيرين طبعا عبد الناصر نصر بشير علي Esra Beşir Ali. I can see. Nasra ninkan dhalinyarada ee nala taagan wuxuu ka mid yahay askarta halkan ee joogto wuxuu baranayaa dhalinyarada dabcan wuxuu noo sheegay in dhalinyaro badan oo Soomaali oo Turkiga jooga saaxiibo ay yihiin waxaan wax ka weydiiyey sida uu u arko imaashihiisa Soomaaliya wuxuu noo sheegay inuu Soomaaliya aad ugu faraxsan yahay dhinaca ciidanka iyo wuxuu leeyahay amni badan kama jira laakiin waxaa jira wadamo kale oo Soomaaliya marka loo eego ka hooseeya dhinaca amniga dhinaca waxbarashadu wuxuu leeyahay way fiican tahay safaaradda inay halkan ku taalo sawaaragta ma fiicanta again welcome Somali magaca ma fiicanta ma fiican tahay kali ba ma fiicna وفيعنا فيعنا مقعة سيتهاي do you know سيتهاي سيتهاي هو كما هو أيوه how are you thank you waxaan sheegay erayada af Soomaaliga qaarkood uu ka yaqaano marka dad badan oo Turkiga iyana waa weydiin doonaa insha Allah wixii kale soo very important Somalia waa sayay runtii waan ka helnay waa nin furfuran oo weydiinay wuxuu yiri magacayga wuxuu yiri Turkish Nasr lagama yisra ala yiraahdo Nasr ninkan odayga hadda dhalinyarada ee ka mid ah security commission loo sheegay uu leeyahay Soomaaliya inay joogaan aad u faraxsanahay
maxaa ka waran xilliyada qaar habeenkii oo kale cabsi dareenta ama uu leeyahay meelahan jimka loogu yaalo iyo iska dheelna waxba ma dareeno oo dhinaca amniga ha wuxuu dhahay dad badan oo saaxiiba oo Soomaaliya leeyahay oo Maxamed Xuseen oo kamid oo leeyahay oo ardayda Turkiga kamid ah joogta kamid uu leeyahay Turkiga hadda isaga dhow kiimid wala soo bedelay sidoo kale wuxuu leeyahay dhinaca waxbarashada way fiican tahay laakiin wuxuu noo sheegay wuxuu leeyahay ogaada Soomaaliya waxaa jira dhinaca amniga marka laga hadlayo wadamo badan oo ka hooseeya dhinaca amniga laakiin waxaan rajaynaynaa inuu amniga wanaagsanaan doono waxaan yiri ka waran madaxweynihiina idii imaanaya iska waragtaan wuxuu yiri aad baa ugu faraxsanahay sababtoo ah annagoo marka hore halkan nooga dhiganeed wadankeena laba ayuu maanta madaxweynuhu nooga dhigi doonaa in wadankeena kuwaad maano waayahay Soomaali nasra hadda waxaan la joogaa Abdulqaadir wiilkan Abdulqaadir waxaan la joogaa Abdulqaadir wuxuu kamid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ka shaqeysa safaaradda Abdulqaadir bal ka waran halkan aad joogto Soomaaliya safaaraddan laga dhisay maanta madaxweynaha Turkiga uu imaanaya dareenkaaga si aad iyo aad aan ugu faraxsanahay safaaraddan waxaan ka shaqeynayaa muddo hal sano iyo xoogaa ah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxdeeda iyo aniga si aad iyo aad aan ugu faraxsanahay shaqada maadaama uu imaanayo madaxweynaheena labaad ee dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay Abdulqaadir bal ka waran marka dadkan Turkiga la joogto kale dhaqan ahaan ma jira waxyaabaha loo sheegi karto loo kala duwan yahay Turkiga iyo Soomaalida wallahi bila wax different uma dhaxeeyo sababtoo ah dadkan waa dad muslimiin ah si aad iyo aad shaqadeena iyo wax qabadkeena faraxsan yihiin anaga waxaan nahay dad faraxsan shaqada ay qabanayaan madaxdeena dadka iyo shaqaaleena si aad iyo aad halkan salaam qaas waxaan ugu maranayaa safiir ku-xigeenkeenii hore Umar Faaruq oo haddan ku sugan dalka Mareykanka ka waran dhinaca la dhaqanka oo kale ma waxaad dadkan dareen mayaa ka jira safaaradda ah in dadku ay ku kala duwan yihiin ajaanib mise waxay la tahay inaan hal jinsi wada leeyihiin marka diinta kale laga eego waxa dhaqanan ku kala duwan ma lahan sababtoo ninkaan u jeedin ninkaan dad kale oo badan oo qaas ah waxaan ku fahmay laba nin oo askarta kamid ah si aad iyo aad isku dhaqan fahamnay laakiin haddana ma joogaan halkan dabeecadahoodu waa dabeecado fiican si qaas marka adiga aan leedahay oo ku soo dhaweynayaan haddii aad dhib u sheegatid waxa ku caawinayaan Abdulqaadir dadkana daawanaya uga faa'iideynay dad ba halkan yimaado Soomaaliya oo tan ay ka soo galaan iyaga sidee loo soo dhaweeyaa sidee loola macaamilaa والله سي أدي هذا لو سودويا سفعنا لو سودويا قف كست شقده وباينها ولو بوفسيا ماشان وماشي دلك كود اللبات دلك تركيا في الصومالي وسام سام ويلكم سودو هذا أي عبد القادر ما سنت dad badana waxay soo dirayaan erayay su'aaleena soo weydiinayaan marka dadka oo badan aawadeed aad loo wada akhrin karo waxaan soo dhahay qofkan oo kala asad wuxuu yiri xushmad baan u heynaa Turkiga wallahi Istanbul iyo Ankara labadaba waan tagay fuul xushmad waa mahadsantahay walaal weli waxaan ku jirnaa safaaradda Turkiga ay ka dhisatay Soomaaliya oo dhismahan aad u weyn beeraha ay ka kooban warbaahintan sida hore idinkugu sheegtaba Nasra Bashir Ali warbaahinteeda ayaan idinkala soo hadlayaa qof kale wuxuu yiri Nasra markaa hadlaysid waa iska jeceshahay iska ka jeclaa walaal noolo aad baa u mahadsantahay assalaamu calaykum uu yiri qofkan meeshan Muqdisho ma yaawla Muqdisho waaye waa safaaradda Turkiga ee ka dhisteen ay Abdulqaadir ana la socdo Nasra Abdulqaadir ana la socdo waxaan tagi doonaa meelo kale marka meelaha qaas aan ku faraxsanahay inaan joogno ee ulimada inta gali meeshaan u jeedid dadka fadhiyaan waa meel sportis dadka Turkiga ya oo soconaa waxaan galaynaa qaybo kale oo